بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أنيقو غير محمد صلاة علي ومقعد ويل وامو. أولا وحان كتعسيدين يا dhibaatada iyo shaqada ka socota galbeedka Kismaayo ee dadka deegaanka ah oo dariska ah ee soo noqnoqotay labadii sano u dambeysay. Awalan waa ka tacsiideynaya wixii dhaawac Ilaahay ha u boogdhayo inta dhimatana Allah u naxariisto. waxaan ugu baaqayaa labada beelood haddii ay garan waayeen wanaag ummadda gobolka la degan gaar ahaan Kismaayo la degan dadkan inay kala dhex galaan. taas waa qodob. marka aan xaqiiqda sheegno dadkan muddo is haysteen waa dad la kala dhex geli karo la heshiisiin jiray, laakiin maamulkii hore waqtigiisu dhammaaday ee talada weli meesha haysta marnaba kuma uusan talagelin dadkan inuu heshiisiiyo. haba heshiisiin waayana hadda waxayba noqotay khamiistii u dambeysay inay fadhiistaan qoladii meesha ku hartay ee sheeganaya magaca wasiiro inay soo saaraan warqad ah 3 maalin gudahood hadda ku heshiin waysaan annaga talaabo qaadayna. ujeedka macnaha waa la fahmay inay dadkan hore isugu sii diraan oo ay la kala saftaan. saakin magaalada Kismaayo waxaa ka taagan ciidankii ahaa ciidankii maamulkii Jubbaland ahaan jiray in walba ninkiisa uu saakin noqday oo meeshaas ay xaaladeeda halka marayso maadaama ay shalay umad gaarayso kontamay ay laayeen iyagoo maamul ah ay ka qayb qaateen dagaalka meesha ka dhacay. mas'uuliyadeedana ay leeyihiin dal la yaqaano oo macruuf ah aan ogoleen aniga hebel inaan dhaho, laakiin maamulka uu ku fashilmay dadka inuu kala celiyo waxna uu kala yiraahdo. marka waxaan la hadlayaa ummadda deegaanka degan iyagu waa 2 qabiilo is haysta sida deegaanka lagu sheego waa 34 qabiilood 32 qabiil hartay 32 qabiil saameynta labada ayaysan idin soo galin ka hortag hadaadan sameyn aadan u kicin culummo iyo caamaba aadan u kicin dadka. tagala dawladda federaalka ee Soomaaliya xaaladii wadciga lagu jiray iyadoo og cudur adduunyada ka qaylisay uu jiro Ilaahay naga shartiro. waxaa loo baahan yahay inay kula xisaabtanto dadkan dhibaatada soo noqnoqonay gaar ahaan markii laga tago maamulkaas iyo haraadigiisa meesha waxaa jooga ciidamo ku jooga magaca Amisom. waxa ay joogaan galbeedka Kismaayo tuulada la yiraahdo Biroole ilaa iyo waxay joogaan Madhamaato iyo Kashishe. haddii maamulkaas marka uu dadkaas isagu kala qaban waayo dana uu isaga leeyahay dad qaar leeyihiin ay fushanayaan dawladda federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay kula xisaabtanto dadka Amisom dhibaatada dhulka ka dhacay dadka deegaanka ee niman dan leh oo gaar ah isugu dhiibeen hubkaasi isu laayaan daaqsinkooda iyo deegaankooda ay u tagaan uga barakacaan. Amisom waa in lagula xisaabtamaa nabadgelyo xumada ka jirta Kismaayo maadaama qoladii kale ee meesha joogtay ay waxba qaban karin. inta waxaan kala dawladda Soomaaliya ka codsanaynaa maadaama xaalad xul lagu jiro duulimaadna uusan jirin cirkii dhulkii badda u xiran yihiin in dadka dhaawaca aheen meesha colaadu saameynayso aan waxba looga qaban karin inay dawladda mas'uuliyadeeda qaado dadka aan waxba looga tari karin Kismaayo ay qaado oo ay geyso dhaqaatiirta mataqaanaayo dawladdu ay gacanta ku hayso si dadka mataqaanaa caafimaadkooda Kismaayo wax looga qabato. waxaan ku baaqayaa nabad baa naas looga leh. xaaladda maanta Kismaayo ka taagan siday wararkii ugu soo gaarayaan colaadii ugu dambeysay shalay ee dhibta weyn inta la ka dhacay oo ay ka qayb qaateen ciidamada ka midka maamulka oo ay dad ku laayeen weli aan ahayn qoryo fudud qoryaha hubka culus ah oo ay marqaati leedahay oo hebel wax laga xisaabtami doono ay tahay, laakiin saameynta ay maanta samaysay waxay saameysay from Barsanguni to Abdalla Biroole. dhibta inta leeg waxaa geysanaya maamulka uu sameyn waayay inuu kala celiyo dadka. waxaana ku garanaysaa hadalkan kuu sheegay ahaa golaha nimanka wasiirada sheeganaya 3 maalmood dad ku kala dhamaan wayseen. xogta la helay waxay noqotay labada beelood
gacanta meel qabsadaa ayaanu taageeraynaa ay arrintu ahayd ayna sidii u dhacday arrintu walow aysan dee bini aadan qabaa'il oo dagaalamaya aysan kala adkaanayn meydka un tiradiisu badan laakiin se iyagu ujeedka leh waa gaareen dadkuna sidaasay ku sameeyeen sanaynaa roolka dowladda federaalka ay leedahay inay ka qaadato arrinta maamulka isagoo aanba jirin oo la aqoonsanayn tallaabadiisuna hadda waxay noqotay dad maata iyo deegaan oo shacab ah in ay kaga qayb qaataan oo ay baabi'iyaan oo ay hub ku garaacaan culus saabir xildhibaan waa mahadsan tahay waxaa ka dhawaajisay maamulka in uu qayb ka qaadanayo dagaalka maxaad ku caddaynaysaa inuu qayb ka qaadanayo caddaynteeda gobolkayba taallaa meydkay taallaa tvya laga soo duubo meydka cidda duubaysa ma ahayn qabaa'il qoryaha lagu dilay sawirradoodan haynaa caddeen baan haynaa dadka la dilay waa 8 qof dad ka badan marka caddaymahooda waa lahay kuwa markhaati uma baahna ti waa meydku waa mamnuuc adduunya laakiinse waa wax caddeen leh cidda hadlaysana codkeeda waa la yaqaanay alquray cidda laysay iyo qorigii noocu ahaa waa la yaqaanay saraakiil bay ahayn ka qayb qaatay dagaalka oo la yaqaano hebel iyo hebel loo yaqaano dadka magaalada joogana way garanayaan maalinteeda imaanaysaa maaha in laga hor dhaco kiiska markuu maxkamad yimaado dowladda federaalka soomaaliya ku xisaabtanta kiiska caddeynteeda markhaatiyaasheeda iyo shakhsiyaadka inta way imaanayaan weri horta werigaan ku saxay anigu waa soomaalidu waxay tiraa hal bowle nadig xalaala ma dhasho anigu kamidna maahi meeshaana maamul kama jiro waxnana umaahi waxnana kamaahi been la tumaayana weligay markhaati kama noqon shaarizuurku wuxuu la mid yahay munaafiqa iyo mushriga ayuu la mid yahay kamana ihi shaarizuur xubinna kamaahi waxnana kuma darsan waxay dowladda federaalka ka taagan tahay ka taagan inaysan meesha waxba ka jirin marka laakiin marka aan la hadlayo ummadan islaamka ah ee isbaabi'inaysa deegaanka wada ah oo dariska ahayd oo muddada intaa la eg halkaa wada deganeed ee waxaa 2018 socdo oo sababa siyaasadeed ku aasaasmay isaashataan waxaan kula talin lahaa daaqsinka iyo deegaanka waa idinka badan yahay haddaad idinku garan weysan inaad isdaysaan maatada iyo mataqaanaa dadka masaakiinta u naxa qabaa'ilada kale magaalada degan ee Soomaaliyeed ee culimo iyo caamaleen waxaan dhihi lahaa war dadka iyagu shidayeeshay soo gaarin arrintan ka hortaga maamulkan meesha ku harayna ma aha mid dadkan u maqan tiisa u dambeysay waxay ahayd 3 maalin ku kala adkaada oo markhaati leh khamiistii bay ka bilaabatay maanta waa talaada waa jimce waa sabti waa xad waa isniin oo shalay la isdarray 3 maalin saas bay maanta waa salaasa وما سكر وسؤال في عن ذات كان يقول أحلوذا ديجان أي كلامي هنا نقول ولا مرحب لكن ذات سياسيين حتى أبوري هل كان على هل كان على ذات كان سيد التاريخ الوعد يو إلى يو تدمقرني أما لحقرني القياسي والتقريه بالدرسي وحين لما تكون إجدي تبقى كوري أما لما يقول لما تكون إسرائيل تبقى حالي طريقتي كوري ولقوا قلبي حكومتي اسمه صارت لكن سدد بقى كشقيي بركي لما قلت صومالي 1 man 1 vote وحاول يقرح له حل يدل يعود عسني كان قرني isaga u taala waxa geela Soomaalidu dhaqan bay geela kuma maada geela labada dambu habeed ku leeyahay subaxii waa ka jeestaa beerta dalabtiina waa ka jeestaa baasha gubays marka nimanka siyaasiyiinta wax kala waa la waayay waxa lagu jeestaa dadka galbeedka degan marka si loo helo cid u codaysa ayay colaadan ka bilaabatay si loo sameeyo deegaamo ونقول بليه ديجان كنال نقول ديجان كنال لكن وحنا وما كلا صعنا ودرس حوله سقول أحياء بيو سقول أحياء ذابو سقول أحياء دمركو سقول أحياء عروتو سقول أحياء وحيكون كلا صعنا يملا درس هايين وإنت أصل سنوات dadkii ka shaqeeyay wali magaalada joogan dhibtooda ka shaqeeyay haddana xal uma hayaan marka waxaan leeyahay ummadda kale Soomaaliyeed deegaanka degan ma taqaana in ay ka hortagaan dhibta